wixii ka dambeeyay sanadii 1991 Somaliland waxa ay sameysay horumar dhinacyada adeegyada aasaasiga u ah nolosha aadanaha oo ka hana qaaday inta badan gobolada Somaliland mana ahayn horumarkaasi mid ku kooban nidaamka dawliga balse waxa qayb laxaad leh ka qaatay bulshada rayidka warbixinta waxa aan ku lafaguraynaa horumarka dhinaca dhismaha gobolada Somaliland dhowrkii sanadood ay musagootinay waxa ay Somaliland horumar weyn ka sameysay dhinaca dhismaha kaasoo ay qayb ka ahaayeen shakhsiyaad iyo shirkado kala duwan shirkadda marmarka wadaniga Sham Factory waxa ay safka hore kaga jirtaa shirkadaha sida weyn uga dhex muuqda horumarka dhinaca dhismaha ee gobolada Somaliland waana shirkadda kaliya ee wax soo saarkeedu gaaro gobolada Somaliland oo idil Sham Factory waa shirkad wadaniya waxa ay soo saartaa marmar ay si weyn ula dhaceen bulshada Somaliland tay ahaan iyo qurux ahaanba shamsada baxayse shacan iyo wanaag badan shamareeray shacabkii maaha shirkadihii shisheeye shaariqa ku yaale ama Shanghai ahaaye shiinaha ku yaale waa shirkadii dalkeenne magaceedu Sham yahay shaqadeedu sharaf iyo maamuus baleedahay ee shacabku hamoogan shirkadda loogu magac daray dhulka taariikhiga islaamka ee Sham shirkadda marmarka wadaniga Sham waxa la hirgeliyay ilaanteeda magaalada Burco bartamihii sanadii 2016 muddadii koobnayd ay ka jirtay magaalada Burco waxa ay sameysay horumar ballaaran waxaana tayo wanaaga marmarkeedu sabab u noqday in la dhigo goobaha waxbarashada meheradaha ganacsiga cusbitaalada iyo waliba guryaha marmarka wadaniga ee aadka u qurxoon ee naqshadaha badan ee ay sameyso shirkadda Sham Factory ayaa la dhigay goobaha ganacsiga guryaha xarumaha waxbarashada iyo goobaha caafimaadka qaarkood waxaana kamid ah goobahaasi jaamacadda Golis jaamacadda Burco hoteelada Kaafi Cigaal New Burco Nasteexo Nugaal Ka Mansoor Dayr iyo Golis cusbitaalada la dhigay marmarkaasi waxa kamid ah cusbitaalka Manhal cusbitaalka guud ee magaalada Burco iyo cusbitaalka Bilkhayr oo dhismihiisu ka socdo goobta loo yaqaano geyrka madaxweyne Siilaanyo ee xaafadda Balaasa sidoo kale waxa kamid ah goobaha la dhigay marmarka wadaniga ee shirkadda Sham dabaqa weyn ee ganacsada Cali Gadle ee dhawaan laga hirgeliyay afaafka hore ee xaafadda Dhurta madaxa shirkadda marmarka wadaniga ee Sham Factory ee magaalada Burco Cabdi Samed Ali Axmed Doodi ayaa sharaxay horumarka ay sameysay shirkadaasi Sham iyo higsigeeda mustaqbalka dhow adaan nahay shirkadda Sham Factory shirkadda qaybteeda Burco waxa la aasaasay sanadkii 2016 bartamihiisii baan Burco ka aasaasnay shirkadda qaybteeda ugu horeysa Hargeysa ahayd Hargeysa laga aasaasay macaamiil badan baan leenahay dad badan oo macaamiila customers badan faracan Burco aan ugu talagalay inaan ku daboolo baahida marmarka wadaniga ee gobolka Togdheer iyo gobolada kale ee bariga inaan ku daboolo xilliga hore waxa dhici jirtay in gobolada barigu say u dhan yihiin ay ka soo qaataan marmarka wadaniga Hargeysa taasina ay markaa ku keento dhibaato badan oo xagga transportka ay ku keento anagu taa ka duulayna si aanu baahida dadweynaha u daboolo aan markaa halkan u furnay qaybtan Burco iyadoo higsigeedu markaa uu yahay inaan Burco qura ku ekaan gobolada bariga aanu dhammaan gobolada dhan wada gaarsiino iyadoo imankaba shirkadu ay tahay shirkadda ugu ballaaran ee dhowr gobol markaa hadda ka shaqeysa xagga wax soo saarkeega shirkadda markaan eegno waxaan soo saarnaa marmarka wadaniga oo noocyada kala duwan leh nashqado badan leh video ka arki doontaan oo si markaa aad iyo aad muddada kooban ee aan ka shaqeynaynay gobolka Togdheer aanu markaa bilicdii magaalada aan wax weyn ku soo kordhinay haday tahay hudheelada waaweyn ee magaalada kaalmaha hospitaalada meelo badan oo markaa meelaha ugu muhiimsan ee ugu waaweyn gobolka ayaa markaa looga qaatay marmarka waxaad soo eegto xilligii hore iyo imika bilicdooda markaa farqi weyn u dhaxeeyo taa waxa si dheer meheradaha biyaha xaafadaha iyagana si aadan loo dhigay marka way dareemayaan dadka dhigtay macaamiisha marmarka dhigtay xagga nadaafadda xagga bilicda waxa uu ku soo kordhiyay aad ba markaa loo dareemayaa macaamiishayada u ballan qaadayna shirkaddan Sham Factory Burco oo looga bartay marmar tayo leh qurux leh
isla markaana shirkadu waxa ay labanlaabtay dadaalka ay ugu jirto in marmarkeeda ay gaadhsiiso gobolada iyo degmooyinka Somaliland oo dhan waxaana kuugu diyaara xarumaha shirkada Sham Factory ee magaalada Burco maamul iyo shaqaale heegan u ah raaligelinta macaamiishooda xarumaha shirkada marmarka wadaniga Sham ee magaalada Burco waxa ay ku kala yaalaan xafiiska koobaad iyo xarunta shaqaalaha waa dhanka bari ee Hotel Plaza xafiiska labaadna waxa uu dhanka koonfureed kaga soo jeedaa maktabada Sawtul Haq wixii faahfaahin dheeraad ah kala xiriir telefoonada kala 443 49 443 49 74 448 733 hal 448 733 hal 943 49 74 943 49 74 waxaa barnaamijkan soo saaray idinla socodsiinayay isla markaana isku soo dubariday anigoo ah Cali Daahir Maxamed Boos intaynu ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh